أولا إلهي بمهرنا إلهي لنا كيري قبلها نية رياء ونوعدين إياه ووح قلبك أخو الشروع أكتنا كل راحة يساطه نوض العقرمين حقيقة وحان أبقى بغي قبله رياء أخبوينك عربي قلتو بحين سيدي أهفني wax laxni oo xagga naxwada oo ku jira oo sanjirin ay luqada oo hadlayeen iyagoo si fiican u soo hadlay marka waxaan idin leeyahay waad ku mahadsantihiin gabdhihiina Xafsa binti Sirin ee gacanta ku haya arrinta iyada jazakumullahu khayran waxaa la dhahaa al-inaa yandax bima fihi weelku waxaa ka soo dhidida waxa gudihiisa ku jira marka waxa aad banaanka keenteen waxa gudaha ku jiray way waxaan idin leenahay ishana Allah idinka duwo amdaashiina Allah ha badiyo ikhlaasna Allah idinku irzaaqo magiciina kor Allah u qaado diinteena Allah inoo ilaaliyo intaas waxaan ku leeyahay gabdhaha diktor shajaac intuu sheegay oo laha amaanta hadee احثوا التراب أفواه المداحين حديثي وأفكا كرسو وقوة ضدك أمانها يهطوك وأمانها يعيد تالي إني سوق لما رجينا وحان رجينا كبراها إن بغن يقع أو يبو إسلوين وحشاقنا يمام مقلين إن كستوء عن إن بغن كمقل السياسيين تكبراها وإذا كما ملفعين تكا هداتهين هذه قبلها أنه ما صوت وبرأي أولاد وزير علماء ما قبلها كرس وقابل علماء ما صوت تربيسي إذا كان هذا علماء المقدار وقبله وما تربينا مركا إلهي هذا بركيه وحدا أن كسي شيء أو يبي من قرن مهي تا إلهي أن كعصنا من الله ضبكا سياسيين وضبطي مرحلة أو أهاي النهاردة من والبلد قولي كم مقاطع ويا مجالنا النجار يسوون بركة يسمى هاي أقول دينه آيات الله تا أمان تيلا فرها علماء الإسكالي وقت قرنا ولا سوق ليه دعوة أكبر لو سود ذلك يغباهن وقع جيسن وأن بقاله يسمي ayay u soo qaban adeegeen ilaa yawmina hada ay ku soo gaareen oo garanayna Sheekh Maxamed Cabdilla maanta nool ilaahay ha xifdiye caafimaadna Allah siiye intaas dacwo iyo tawxiid uu ku soo qeylinayay iyo xijaab marka culimadu aad bay u dadaaleen siyaasiyiinta aadan barro baan helay inta badan wax umaatiisu toos loo garab istaago maxaa yeelay qofka haddii marka aad wacdaba aad helayso إن بدن ولا جاي على حاجة كلام مربنا وحبتان لكن إن النهري لا ولا جاي على وحكم هو ماشى أقول إياه معمول إياه إلهي درادي إخلاص إياه شاقو سير كنت آد وهفن هيا كم وقتها بارك الله فيكم الله يتعبر وحكستو أصعدنا سواء بينهم يوحيارو كلمة ومركب عندنا يا بيئة وناكسن وأكو شقين فتانا إلهي رأيي فوقيه قارب وناكسننا واجه الشيء شرعي مكان جوني توري نبا هضو وحورها الله نكستو مسؤول له وأي تصي التفسير هو حسابتهم مركب عندنا يا وزيرك يتصي كلمة التفسير اللي وجدتها هذه لا يتص أما التفسير سواء علمنا أن يتص التفسير هذا ذلك أنا أقول تفسير يا هذه هول كره أوبن وحتى وكمان يو أنا شيء سبس الوقت بسبب كلمة وكلمين يو تعليم تهويك تصرف فيه ماشي هذا أنجلون معلم أول رسالة أنا إماري دور بيه دور
maantana sidan ay u taallaa marka jazaakum allahu khayr ninkaasina ilaahay ha xifdiyo ilaahay iimaankiisa u ilaaliyo caafimaadkiisa allah u xifdiyo cadowgiisa badan ee kula coloobayo maxaa diinta iyo kaalmadaas kula coloobayana ilaahay ha ka reebo awood uu noogu adeego allaha siiyo xoolo xalaal oo uu ummadan iyo diinta ugu gargaarana allaha siiyo qalbigiisa weliba hadda waa xasiloon yahay uu degan yahay qalbigiisana allaha sii xasiliyo ilaa wax kasta niyaday ka socdaan wala weerar badan ba kolay lagu hayaa weerarka qaarkii waa iska caadi laalo kursigaas waxa ku fadhiya nin walbaa raadinaya marka midii kursiga la raadinayo nin walba kursiga buu raadinaya laakiin midda kale iimaankii xagga aakhirada taasuu isagaan kaga badinaya marka taas alla u kaalmeeyo waxaanu kusoo goobayaa meelaha haweenka iyo daarista iyo wasiir sabcan ay dadaalayaan magaaladana sidii la reey ayay oga shaqaynayaan sida runta natiijada la hayo iyo muddada la joogo hadda ay la siiyey muddo aad u yar waayo dadka laakiin waxay dhahaan waxaa wax lagu bedeli karaa 20 sano laakiin hadda 20 sano ma ahee 10 sano ka yar ayayna soo baxday natiijadoodii iyo waxgalkoodii marka dad marka hore u baahnaa bay ahaayeen inuu wax yar un saa loo riixo dadaalkooda hadda waa arkaysa maamulka aad buu wanaagsan yahay tayada tacliinta aad buu wanaagsan yahay nidaamka wax loo akrinaya iyo nidaamka loo maamulay aad buu wanaagsan yahay wixii tawjiih iyo hadal ahaa waxaa horay u dhaheen raggii iga horreeyey culimada ahaa ee meesha ka hadlay labadii maaragtay wasiir sheekh maxamed iyo maaragtay sheekh ismaaciil ayaa horay dhaheen hadalkoodii unbaa anigu ta'kiidinaya waqtiga la joogo waa waqti aad iyo aad u dhib badan waxa aan ma aragtay nagu soo socdanayo ilaahay sharkiisa naga qabtee adduunka iyo qaabka loo fikirayana waa ku badan yahay waxaad moodaa inay isbedeli doonto taariikhda iyo nolosha iyo ma aragtay muxuu ahaa tarbiyada kulli inay isbedeli doonaan baad moodaa sida ay u fikirayaan reer galbeed iyo dowladaha adduunka ma aragtay kolba dhinac u joodiyaan waqti hadda waxaa laga hadlayaa oo aad iyo aad u xoog badanaysa bini-aadanka inay ma aragtay dhanka akhlaaqda isku mid ka noqdaan ayadoo loo soo marayo awood maaragtay kala duwan social mediaha waa awood la isticmaalayo la rabana in lagu bedelo akhlaaqda ummadaha waxaa loo soo marayaa marka qaar awoodo military awood dhaqaala loo soo marayaa sifa akhlaaqda loo bedelo marka anaga waxa keliya samayn karna waxaa waaye marka tacliinta inaan sifa dagaalkaas qabow aan la fahmaynin uga hortagno inaan ku dadaalno maxaa yeelay waxa socda wax sahlan ma aha iyo waxa la maagan yahay iyo waxa adduunka ka socda waa wax fara badan oo dhiban intaas waxaan dhihi lahaa wixii maaragtay kelimad ah wuxuu ahaa jaamacada islaamiya jaamacadda la yidhaahdo waa jaamacad maaragtay jaatar ah jaatarna waxaa waay macnahu waa jaamacad waddanka laga aqoonsan yahay farac islaami ah oo qaybta diiniga ah ayay keentay mar dhowna waxaan rajaynaynaa inay qabato xafladii qaybaha kale sida qaybtii tariiminka macallimiinta qaybtii combyuutarka qaybtii maaragtay muxuu ahaa looga taasoo fursad badan siin doonto ardada ka baxayaan secondary-ga inay meeshan jaamacadda ka geli karaan waxay keeni doontaa jaamacadda haddii ilaah yidhaahdo qayb luga alcarabiya oo mutakaamil amana maaragtay programya dhamaystiran ayay keeni doontaa oo hadda diyaarsan insha allahu xafsa binti siriin muasasada waxaan keeni doonaa barnaamij khaas ah barnaamijkaana muddo kooban unbay jaamacadda haynaysaa ka gadaal waxaan rajaynaynaa inay ree xafsa nagala wareegaan waa barnaamij aan rajaynayno ree xafsa inay la qaybsadaan iyo dumarka kale inaad la qaybsan doontaan tarbiyada banaadka waktiga la joogo khibradeeda iyo waxa loo baahan yahay caalam alislaami oo idin keeni doona mar dhow insha allahu caalamka carabta idinkaga keeni doona dumar idinkoo kale ah si khaas idin tababari doono waxay khibrad idan dheeryihiin idan siin doono markaas insha allahu tacaala
aynu noqon doono dad islaamkii dadkii asalka ahaa islaamka in badan laga faa'iidi jiray iyo teeni anaga gaarka noo ahayd kulansaday waan rajaynaynaa insha allahu tacaala ina gaarno أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد علينا الله المجمع مكانك بركيسا يا حفلة بركيسا يا بندقا بركيسا الله مهد علينا هذا الكوان سوق من دونا سدح كلمة عران دونا كلمة الكواد الجميع بانوله دونا كلمة اللبان للحفص عوله دونا كلمة سدحان ملح عوله دونا كلمة للجميع عوله وحوى إلهي وحلي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله القوم كان يسكوي عوري إنه نقرأ ما أنت هل كاننا يسكون ما نحلي واتقوا يوما ما لك عبصدا إلهي ما لنت كعبصدا وما لنت قيام واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا إلهي سبحانه وتعالى يا الله نقنيه إن كانني أنت نقدم بيسي أنت نقوه الرئيسه إلهي حديث الله لابد إنها معلن نوعها هوشا وحي كتسينيسا وهو الجهل وبحيي وهو الدلال بدن وبحيي وهو الألبال بدن وبحيي مركا وحالنا المسؤولين يا معلمين يا أرضينا وبركيزتين هم أسيسوا إلهي بركيه هذا نوع عجيب جلسي قبلها كل ما شاء الله ياهي أرضينا أخرسي أقوى كهل ليسي هيقظة وحي سواء نقانا قوة خير الله سيء تمام خير الله سيء إلا كلمة قوة ميجا يكون صادرتي وكلمة لغو برارو كوهن أديو بيه لغاقوي أديو حنصني لغاقوي كورد ديارة لغاقا قراعي هوس مدمع لغاقا بفتي هوش عادلة إنتنا هدايمانت إنا قبصته هوش سينا قولها هذه لو اسكعبنا وان فرحنا وان لضنها إلى تلك الأيام مداولها بين الناس إن يسوي ريتنا وصوت قلب هلو تعي وحكا لهدان لقتلي هيقظة هلو تعي انت ريح سواكم سنتين الله يني بركايو شيخ حاوى هرهت كار وحير ما حاوى هدينه شيخ حاوى لا شيخ حاوي حتى الله بركايو